kulanti wanaagsan daawadaalkuna soo dhawaada markale barnaamijkeena arrimaha siyaasadda garqaad midiya qodobada wararkana waxa ugu waaweyn siyaasiga cabdiraxmaan shukuur warsamo ayaa ka hadlay ujeedada laga leeyahay mashruucii uu hakiyey ra-iisul wasaare khayre. ciidamada danabna waxa ay xalay howlgallo qorsheysan ku qaadeen deegaanka basra ee gobolka shabeellada dhexe. bangiga adduunkana waxaa la sheegayaa inuu diiday joojintii ra-iisul wasaare khayre uu ku sameeyey mashruucii lagu maalgelin lahaa gobolada dalka ee qaar iyo weliba iyagoo dhahay mashruucaasi hore ayaa loo saxiixay. iyo weliba fanaanada yurub kenya u hambalyeysay ninkeedii hore oo wiil ugu dhashay gudaha magaalada muqdisho. qodobadaas iyo weliba qodobo kaloo xiisle ayaana barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa kana maqnaa wararka caalamka iyo weliba arrimaha bariga dhexe iyo weliba wararkii ugu dambeeyey xiisadda maraykanka iyo iiraan oo iyadana cirkas kusoo shareeraysa. haddii aanu ku bilowno daawadayaal taariikhdu maanta waa 20 bisha January 2020 haddii aanu ku bilowno faahfaahinta qodobadaas hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kuwa ugu weyn ee dhaliila dowladda federaalk ayaa ka hadlay mashruuca bangiga dhexe adduunka ee horumarinta muqdisho iyo weliba 3 magaalo ee caasimad dowlad goboleedyada puntland koonfur galbeed iyo weliba jubbaland. cabdiraxmaan shukuur ayaana su-aal ka keenay ujeedada ka dambeysay joojinta ay xukuumaddu ee mashruucaas iyadoona bishii hore bangiga adduunku shaaciyey in la fuliyo mashruuca ku baxaya $112 milyan. cabdiraxmaan shukuur warsame ayaana waxa uu qoraalkiisa u dhigay xukuumadda federaalk ayaa sheegtay in ay joojisay hirgelinta mashruuca banka adduunka ku dhisayay kaabayaasha caasimadaha dowlad goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir. laakiin banka adduunkana boggiisa internetka ayuu 9 bishii December 2019 ku shaaciyay mashruuca iyo weliba sida loo fulinayo. hadalka kasoo yeeray xukuumadda waa mid maarin habaabin ah, dowladda ku dheel ah, dan qaran mid aan danta galmudug iyo weliba hirshabelle ka turjumaynin, waxaana cadeen waa buu yiri qodobada soo socday isagoona qodobadaasi ku sheegay. beedhabo banaadir garowe iyo kismaayo waa magaalooyin soomaaliyeed wax eedna kuma laha in jowhar iyo weliba dhowsamareeb ay ka mid ahaan waayaan buu yiri mashruucan laga hirgelinaya magaalooyinkaasi. eedda waxaa iskale dowladda federaalk soomaaliya oo mashruuca maamuleysay waa mas-uuliyad daro, aqoon dari dhanka dowladnimada ah iyo weliba aqoon la-aan guud in la yiraahdo mashruucii waa la joojiyey waxay ahayd in la sheego sababta jowhar iyo dhowsamareeb looga reebay mashruuca iyo inay dowladdu ballan qaado in ay kusoo darto mashruuca maadaama ay iyadu maamuleyso. wuxuu ku sheegay dowladda federaalk ayee bilow iyo dhammaad way la socotay ilaa shalay wuu yiri wasiirka maaliyadda uu saxiixayay barnaamijkaasi. sawgaraadkeena oo laga xadgudbay maaha in la yiraahdo shalay ayuu ra-iisul wasaaruhu ku baraarugay in ay jowhar iyo dhowsamareeb ka maqan yihiin mise dalkan ayuu ka maqnaa mise wuxuu ku biiray naadiga waxba kama oga ee madaxweynaha. waxa uuna isagoo hadalkiisa sii wata cabdiraxmaan cabdishakuur warsame yiri way caddahay in hadalka xukuumadda loogu talagalay warbaahinta iyo in lagu moodo maalmaha ay doorashadu galmudug socoto maadaama musharaxay dowladdu ay arrintan dhaawacayso iyo weliba wasaaraha oo galmudug iyo hirshabelle qabiil ahaan 4.5 ku matala. haddii ra-iisul wasaaruhu soo dhicinayo xaq ka maqan labada maamul gobol waxay ahayd in uu soo dhiciyo isagoo aan kuwa kale xaqooda duudsayn ayuu kusoo qoray barkiisa Facebook. waxa uu afar ku sheegay ficilka hogaanka dowladdu wuxuu ka turjumayaa oo yiri inta ay la egtahay aqoonta fahamka iyo weliba way aragnimada ay u leeyihiin dowladnimada. dhinaca kalena wuxuu muujinayaa sida ay uga maran yihiin damiir dadnimo iyo weliba mas-uuliyad dowladnimo maadaama ay ololo siyaasadeed u isticmaalayaan buu yiri mashruuc horumarineed oo ay dowladdu ajnabi ah ugu deeqeen Soomaaliya iyagoo kala hirdanaya shacabka Soomaaliyeed. waxay ilo lagu kalsoonaan karo inoo xaqiijiyaan in banka adduunka uusan marnaba hakin doonin hirgelinta mashruucaasi. waxaysan jirin sabab lagu qancin karo oo sidaasi loo yeelo hawsha mashruucan ay xukuumadda Soomaaliya bilow iyo dhammaad la socotay wax dareen ahna aysan marnaba ka muujinin. heshiiska ay kala siixdeen qaar ka mid ah wasiirada maamul goboleedyada iyo weliba wasiirka xukuumadda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa waxaa hakiyey dhami ahaanba ama laalay ra-iisul wasaare khayre isagoo sheegay in dib loogu noqon doono heshiiskaasi islamarkaasna wax laga soo bedeli doono. taasi oo dad badan oo baraha bulshada isticmaalay weliba siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed ay arrintaasi ku sheegeen inay tahay mid wanaagsan maadaama
mashruucaasi ay ka maqnaayeen maamul goboleedyada galmudug iyo weliba hirshabelle. dhanka kalena wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamada danab ee ka tirsan xoogga dalka soomaaliya caawa howlgal qorsheysan ku qaadeen deegaanka basra. ciidamadan oo caawa fiidkii ka yimid dhanka muqdisho ayaa la sheegay inay ka galeen deegaanka basra jiida jayga ah ee aada afgoy kana baxda degmada balcad. wararka ayaana sheegay in ciidamadan ay ku habeysnaayeen gaadiidka dagaalka kuwa oo ku dhow 40 meeyo oo ay wehelinayaan gawaarida ambalaasta, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ay fiidkii hore ee caawa ka yimaadeen dhanka muqdisho. deegaanka basra ayaa ku jirtay degmada balcad waxay u jirtaa ilaa 16 kilomitir, waxaana deegaankaasi saldhig weyn u ahaa dagaalamayaashaasi ee ururka al-shabaab. waxaana lagu tilmaamay in uu ahaa saldhigga ugu weyn ay ku lahaayeen deegaanadaas, iyagoona weeraro uga soo qaadi jiray dhanka afgooye, balcad iyo weliba wadada isku xirta balcad iyo weliba jowhar. inta badan howlgalada ciidamada danab ee u tababaran mareykanka ayaa ah mid guurguuro oo aan saldhig lahayn, waxaana dhacday in deegaano ay la wareegeen inay isaga soo baxeen muddo kadib markii ay fuliyeen howlgallo gaar ah. muddooyinka ugu dambeysay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in dagaalamayaasha fara badan oo ka tirsan ururkaasi ay soo buuxdhaafiyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe, iyagoo kasoo cararay duqeymaha gobolka shabeellada hoose iyo weliba jubbooyinka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska mareykanka ay ka geysanayaan goboladaas, taasi oo la sheegayaa inay tahay sababaha ugu weyn ee gobolkan aadka deegaanadan ugu soo badanayaan muddooyinkii ugu dambeysay. dhan kalena wararka lagu kalsoonaan karo helen ayaa sheegaya oo ku aadan baanka adduunka inuu ka hor yimid ishoristaagii xukuumadda ay ku sameysay mashruucii wadooyinka loogu dhisayay 4 magaalo oo ay xamar ku jirto. shalay ayaa wasiirka beyle duqa muqdisho cumar finij wasiir cabdi hoosow ay kala sixdeen mashruucani oo ku kacayay 112 milyan oo dollar. magaalooyinka ismaaciil muqdisho garowe iyo baydhabo ayaana la sheegay in mashruucan loogu talagalay, balse ra-iisul wasaaruhu ayaa joojiyey sida la ogaaday. warka ka soo baxay wasiir beyle maanta shalay ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiskaasi uu garwaneedo ka ahaayeen isaga iyo weliba xukuumaddu uusan bangiga adduunku sheegin arrintaasi la joojin karin. hase haatee bangiga adduunka oo ku yabahay mashruucani waxay sheegeen in diidmo ama is-hortaag lagu qanci karo aysan la imaan xukuumadda soomaaliya, sidaa awgeedna aysan joojin doonin mashruucaas. lamana oga sida ay xaaladdu noqon doonto, iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu u dooday maamul goboleedyada hirshabelle iyo galmudug oo aan mashruuca laga qeybgelin, islamarkaasna uu sheegay in dib loogu noqon doono heshiiskaasi, islamarkaasna wax badan laga bedeli doono. dhanka kalena fanaanada caanka yurub kenya ayaa waxay hambalyo usoo dirtay ninkeedii hore, iyadoona ugu hambalyeysay wiil ugu dhashay gudaha magaalada muqdisho, taasi oo ay u dhashay fanaanada kale iyadana shaadi sharaf cabdifataax yar oo ah fanaaniinta sida aadka ah looga yaqaano guud ahaanba gudaha soomaaliya ayaa waxaa wiil uu ugu dhashay isbuucani gudaha magaalada muqdisho, isagoo wiilkaasi u bixiyey maxamed. fanaankan oo horey ay isku qabeen fanaanada yurub kenya ayaa waxaa si la yaab leh baraha bulshada ay ugu soo qortay inay hambalyo u direyso fanaankaasi oo ay hore u kala tageen, isla markaasna ay ugu hambalyeysay wiilka ugu dhashay magaalada muqdisho kaasoo loo bixiyey fanaankan cabdifataax yar ayaana waxaa u dhaxda fanaanada kale ee shaadi sharaf oo ay isguursadeen kadib markii ay kala tageen yurub kenya oo inta ay ku nooleed magaalada muqdisho la nooleed lana ayna ahayd xaaska fanaankan ayaa waxa ay iskaga soo tagtay magaaladaasi muqdisho kadib markii ay kala tageen fanaankaasi, iyadoona ku noqotay magaalada hargeysa oo muddooyin ay ka maqnayd waagaasi. fanaanada yurub kenya ayaana hadda waxay ku nooshahay magaalada hargeysa ee somalilan. ugu dambeynna daawadayaal wararka ugu dambeeyay bariga dhexe dowladaha iiraan iyo mareykanka iyo weliba ciraaq ayaa waxa ay xaaladooda tahay mid cakiran, iyadoona la sheegayo in dowladda iiraan ay wado arrimo ku aadan aargoosiyo waaweyn iyo weliba iyadoo la sheegayo in ciidamo daacad u ahaa dilkii jarnaalkii la dilay ay wadaan qorshayaal ay rabaan inay ku weeraraan xarumaha mareykanku ku leeyahay gudaha bariga dhexe ay ka mid tahay dalkaasi ciraaq. xaaladda ayaana waxaa la sheegayaa in mareykanka oo codsaday in uu wadahadal la furo dalkaasi iiraan ay gebi ahaanba arrintaasi la diiday, iyadoona dowladda ciraaq baarlamaankeeda laga yaabo inuu maanta ka doodo arrimo ka mid ah
ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkaas, iyadoona horey mashruuc noocaas oo kale baarlamaanka uga hadleen oo ka mid tahay in gebi ahaanba ciidamada ajnabiga ah ee ku sugan dalkaas Ciraaq ay isaga baxaan. waxaana la sheegayaa in ciidamada daacad u ahaa generaalkii la dilay Generaal Qaasim Suleymaani ay wadaan qorshayaal ka dhan ah Mareykanka, kaas oo halis ku ah Mareykanka danihiisa bariga dhexe iyo weliba saldhigga weyn uu ku leeyahay saldhigyada waaweyn uu ku leeyahay gudaha dalkaasi Ciraaq. Iiraan ayaa hore waxa ay weerar gantaalaha ku qaaday saldhigyadaasi, iyadoo gantaaladaasi mid ka mid ah uu galaaftay diyaaradda Ukrainian Airlines oo uu mareysay hawada dalkaasi Iiraan, taasi oo in ka badan 176 qof oo saarnaa ay gebi ahaanba ku geeriyoodeen. Iiraan ayaa gebi ahaanba arrintaasi iska diiday in ay ka dambeysay, balse waxa ay qiratay muddo kadib markii ay sheegtay in gantaal si aan ula kac ahayn uu diyaaraddaasi ugu dhacay. balse dowladda Iiraan ayaa ilaa iyo hadda waxaa laga sugayaa jawaabo cadcad iyo weliba cadeymo ku aadan arrintaas, iyadoona wadamo badan ay ku eedeeyaan in si ula kac ah ee diyaaraddaasi ay u soo riday Iiraan. balse Iiraan ayaa waxay sheegtay in diyaaraddaasi qaab aan la ogeyn ay gantaalku ugu dhacay, iyadoo xilliga diyaaradda la soo ridanay ay socotay duqeymo gantaalo ah oo Iiraan ku gameysay gudaha ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalkaas Ciraaq. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.